السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaleyga marna asxaabteeda qaaliga soo dhawaada meel kastoo aad ka joogtaan dunida daafeeda isku soo noqod wanaagsan alxamdulilah. muuqaal karoo qeyrkiisa wato kana duwan muuqaaladii hore. muuqaalkan waxaa rabaa inaan idinkula wadaago 2023 Diseembar ilaa 2024 Diseembar waxyaabihii aa qorshaystay ee ii hirgalay iyo waxyaabihii Ilaahay subxaanahu wa tacaala sida kadiska ah igula kulansiiyey inta lagu guda jiray sanadkan dhexdiisa. haddaba waxaa saaranahay wadadii ay ku gaari lahayn 3k subscribers. waxaan leeyahay ila dhaqsada hambaliyadiina waa sugi laahay iyo hambaliyadeeda intaba. waxyaabihii ii hirgalay 2023 ee aa qorshaystay waxaa kow ka ahaa barashada quraanka kariimka tafsiirkiisa ama tafsiirka quraanka kariimka barashadiisa. 2023 bishii Diseembar ayaa qorshaystay alxamdulilah. inkastoo 114 aarabi ani inaa barto oo tafsiirkeeda laakiin waxaa bartay qayb ka mid ah. insha Allah waan rajeynayaa in aan sii wadi doono sanadkan haddii Ilaahay caafimaad iyo naf igu gaarsiiyo. sidoo kale lambar 2 waxyaabihii ii suuragal waxaa ka mid ahaa in aan samaystay dhalasho ii sugnaan. weliba aan ku samaystay magacayga oo aan waxba laga bedelin. taas markaa dhahay maxaa ka wadaa aniga magacayga waa Zakiya Aadam Xaaji Ibraahim. sida la og yahay markii la sameynayo dhalashada iyo sugnaanta waxaa laga reebaa magacyada xaaji ama sheekh waa laga reebaa. Ilaahay wuxuu ii suurageliyey xaaji isuu ku jiro in aan samaysto alxamdulilah rabbil caalamiin oo walaalahay aan ka harin. waayo walaalahay haddii xaaji ugu jiro anigana xaaji uusan iigu jirin waxaan noqonaynaa laba dad yacni laba qola kala noqonaynaa. kulli intaas way fahansantihiin laakiin muhiimaddu waxaa waaye dhalasho iyo sugnaan inaan samaystay oo aan ka lahaa yacni waxyaabo badan inaa ii fududeyso. lambarka 3 waxyaabihii aan qorshaystay ii hirgal waxaa ka mid ahaa inaan samaystay bank account ama account bank inaan samaystay markii iigu horeysay iyo sidoo kale mastercardkiisa. account bankiga meesha aan ka samaystana waxaa waaye the one and only bank oo aan jeclahay oo aan leeyahay One Love Premier Bank oo aad iyo aad aan u jeclahay. waxaa Ilaahay ii qadaray 2023 bishii Diseembar inaan ka samaystay account iyo sidoo kaleente mastercardkiisa oo asagana waxyaabo badan ii fududeeyay alxamdulilah rabbil caalamiin. reer Premier Bank da daawanaysiin halkaan aan idinka salaamaya. waxyaabihii kale aan qorshaysto ii suuragal waxaa ka mid ahaa in aan isku dayay inaan barto ama aan go'aansaday inaan barto e-commerce waxyaabaha quseeyo ama electronic maxaa la yiraahdaa commerce waxyaabaha quseeyo haddii uu soo gali lahaa iyo sidoo kale online business inaan yani barto. alxamdulilah waa bartay. janaaladii iga saaciday waxaa ugu weynaa ama aan ka xasuusan karaa ustaad Geela Bashiir. janaalkiisa kuley intii taqaano ustaad Geela Bashiir ayaa aad ii caawiyey. weliba waxaa ku bartay wax ka yar hal isbuuc wax ka yar ayaa ku bartay alxamdulilah. ilaahayna wuu igu guuleeyay. taas waa midii afraad e-commerce inaan bartay. midda shanaad waxay tahay inaan go'aansaday inaan bilaabo ganacsi oo online business ah. waa go'aansaday waana bilaabay oo waan sameeyay. ilaahay mahadiis ay ahayd maadaama aan soo fahmay maxaa la yiraahdaa qodobkii ku horeeyay oo aan soo bartay. dalabkayga ugu horeeyay marka waxaan samaystay 2024 bishii labaad ama Febraayo bishii loo yaqaan ayaa samaystay. bishaas waxyaabihii cajiibka ahaa waxaa ka mid ahaa ma anigoo ay tahay markii ugu horeysay oo aan dalab sameynayo. meesha aan alaabaha ka dalbanayana waa China Alibaba ayaa alaabaha ka dalbadaa. waxayna galayeen bishaas festival ama ciid iyo waxaasay lahaayeen oo ay Christmas ma aqaan ciid festival oo ayaga u qaas ah ay lahaayeen. bishaas oo dhan off ayay ahaayeen. intaan la fasixin ama weekii ugu dambeeyay ayaa aniga lacagta u diray. kadib one month dhan waxaa sugayay inta iyaga ka soo noqonayaan. dhowr asxaab oo aniga ii dhawaa u sheegay yani waxyaabihii ay dhaheen waxaa ka mid ahaa ka waran lacagtaada haddii meel cidlo ay ku baxdo, lacagta haddii aad arki weyso, haddii productigaaga lagu keeni waayo, waxyaabahaasay dhaheen. laakiin jalaq uma aana siinin oo waa u bareeray riskiga mararka qaarkood inaad u bareertid ama yani aadid way fiican tahay. waayo goolo fara badan inay ku hoos tuugan yihiin laga yaabaa oo aadan ka cabsanin. haddaa ka cabsatidna inay kugu noqoto caqabad. maalintaas ana haddaa dhihi lahay wallahi sax waaye lacagteeda hadday meel cidlo ku baxda dhibaato waaye khalaas may ku jira dadho maanta alxamdulilah meesha aan joogo ama yani businesskayga meesha uu joogo ma joogi lahayn. taasna ilaahay mahadiisa ay ahaatee.
saa idiin sheegay waxaa dalbaday bishii 2 Febraayo alaabteeda waxay soo gaartay bishii 3 29keeda 2024 one month waxa iga haystay kaargooga hal bilna waxa iga haysteen maadaama ay fasax ku maqnaayeen qoladaas alxamdulillah markii soo gaartay yani waxaa dareemay inaa milyaneer noqdo kale waayo qofka waxaa dareemi kara dadka inay wax u baahdeen ama gool ama hadaf ay yeesheen markay goolkaas ama hadafkaas ay ka mari dhaliyaan ee la noqonaysa kaanama qof adduunyada saaran weligiis inuusan waxaas arkin oo kale waa asaga gooni ama khaas u yahay oo kale saasoo kale aan dareemay alxamdulillah maxaa yidhahdaa productiga iigu horeeyey oo aan dalbaday wuxuu ahaa boorsadaas ayay ahayd waxaa cajiib ah materialka ay ka samaysan tahay waa polyethylene ama BU waxa loo yaqaano waxay dhexda ku wadataa boorsadaas yarta ah alxamdulillah 3 midab ay ka koobneed iyadana way ii dhamaatay walow asxaabta aniga ii dhow ee iga iibsadeen inta badan waxaa marayaa qodobka lixaad waxyaabihii ii hirgelay waxaa dib ugu soo noqday saaxadii macalinimada ama maxaa la yidhahdaa goobta macalinimada inkastoo aysan yani ii suuragelin in aan banaanka u baxo oo iskuul private ama iskuul dowladeed midkood aan ka shaqeeyo laakiin ilaahay wuxuu ii qadaray gurigeyga anuu joogo inay ardayda iigu imaadaan as home teacher ahaan aan u shaqeeyo marka hore waxaa sameyn jiray guryaha dadka anaa ugu tegi jiray laakiin finally waxaa sameeyey guriga ani in la iigu imaado sababo jira awgood waa isla faana rajeynaa waxyaabihii marka ii suuragalay waxaa kamid ahaa oo ilaahay ii qadaray oo anigana qorshahayga kamid ahaa inaan samaysto custom weliba aan ku samaysto kartideyda daacadnimadeyda yani maxaa la yidhahdaa baawarka ilaahay uu isiiyey alxamdulillah waayo qofka haddausan karti lahayn oo awoodda ilaahay uu siiyey uusan ku shaqaysanaynin uusan muujinaynin qof raacaya ma lahan intaas anoo isticmaalayo qalbigeyga ay ku jirto ilaahi subxaanahu watacaala wuu ii qadaray wixii aan ka rajeynayay alxamdulillah waxyaabaha kale maxaa la yidhahdaa ka gadaalna maxaa la safarkan boorsada ka gadaal dhowr maxaa la yidhahdaa alaabo oo aan soo iibsadaa jiro oo aan keensaday safar badanaa ka dambeeyey dadkii iga iibsadeen lacala hadda ay daawanayaan waxaa idin leeyahay aada u mahadsantihiin dadka ugu badan oo aa ka samaysta kastamna waxaa waaye gobolada Soomaaliya laga bilaabo Banaadir ilaa iyo gobolada xaggaas isku dardar Hargeysa Boosaaso Garoowe maxaa la yidhahdaa Baydhabo Kismaayo isku dardar goboladaas oo dhan maasha Allah aada kastama aa uga leeyahay marka waxaa idin leeyahay adinkana daawanaysiin waa idin salaamaya waxyaabihii kale oo aa qorshaystay oo ii hirgala waxaa kamid ahay in aan rabo in aan yani go'aansaday in aan barto video editing maadaama ani aan ahay qof youtuber oo haddana ahay qof yani tiktok oo tiktokerna ma dhihi kara laakiin tiktok maadaama aan soo galo oo waxba aan soo dhigo videoyaal waan ku qasbanahay in aan barto video editingka taas aa igu qasabtay awalna hobbigaygu ahay sideedaba video recording maalaams video editing videographing yes videographing aada u jeclaay oo hobbigaygu ahay haddana waa ku dadaalay marka ka dambaysa waxaa dareemaysay videoyaasheeda inay isbedel sii sameynayaan yani xagga quality-ga tayada inay kor usii kacayaan maadaama hadda bilow aa ahay video editingkayga yani ma dhahay si oo wow aa u bartay ma dhahay laakiin waa bartay alxamdulillah intii aan waxaanan hore u ka seenin ayaan bartay ilaahay mahadiis ayaan taas ku ahaatay waxyaabihii kale cajabta ahaa oo aan la kulmay sanadkan oo aan isdheheenin oo lama filaankan igu noqdo waxaa kamid ahaa waxaa bartay xirfadda loo yaqaano crochet qofkii yaqaano wuu yaqaanaa dumankaas waa la yaqaanaa soo maaha dumankaas waxaa laga sameeyaa yani gacanta ayaa waxaa loogu talaa boorsooyin waxaa laga sameeyaa fanaanado waxaa laga sameeyaa koofiyo waxaa laga sameeyaa waxyaabo guriga loo isticmaalo sida waxyaabo lagu qurxo sida komadiinada oo kale tabaleedyada oo kale yani waxyaabo lagu sharaxdo ubaxyo xataa waa laga sameeyaa oo maxaa la dhahaa iyadoo la isticmaalayo geedahan kuwiyaa marka isku dayay oo aa bartay ma baranin laakiin isku dayaa sameeyey waa bilaabay isku daygii aa sameeyey waxyaabihii aa sameeyey waa kuwanaa waa ujeedinaano khalad ku jiro qofka crochet-ga yaqaano ama macalinka ku wuu fahmayaa khaladaadka aa sameeyey ma jeedin waxaan odhan yani xargahaas waxaa u jarjara waxaa waaye waxaan isku dabay oo asaan u malmaloogay waa dumahii hadda aa arkayseen dumahaasaa laisku geegeena waxaa laga soo saaraa boorsooyin waxaa isku dayaa boorsooyinka laga sameeya sawiraantood inaan shaashada idiin soo saaro saa u aragtiin inta badanna maba yaqaanaan gabdhaha wiilashan inay indhaha ka arkeenaa laga yaabaa
intaanan aqoonin koraa uga faa'iideynaa insha allah. waxyaabihii kaloo ii suuragalay oo aa qorsheysta waxaa kamid ahaa in wiilkeyga curadka ah yacni qorshaheyga aa ku daray in sanadkan aa geeyo waxbarasho ama xanaano. waana geeyey alxamdulilah, walow dadka ay dhahayeen cunugan weriya maxaa waxbarasho kala doontay, laakiinse waa ku nafciyey oo yacni wax aa ku khasaara ma aysan ahayn. habeennimaa wax fiidiyowga duubaya taxsiga meel u socdo ma aqaano by the way. waxyaabihii oo sida kadiska ah oo la kulmay waxay ahayd in yacni si kadis aanuna filanaynin oonan qorsheysanin aan ku helay taleefon cusub, sidoo kale aan ku helay laptop. walow laptopka hadda uu gacanteeda ku jirin uusan isoo gaarin, waddada kusoo jiraa, laakiinse labadaba waxaa la yidhaahdaa milkiila labadaba anaa milkigooda leh, anaa iska leh macna. sikadiis waxaa iigu keenay ama maxaa la yidhaahdaa iigu hadiyeeyey xaajigeyga oo halkan aan ka salaamayo. waxaa leeyahay sharafi ciise kuwaar, aad iyo aad iyo aad aa u mahadsantahay xaaji, shukran. si idin yeeloyaa waayahay. waxaa kaloo waxyaabihii kadiska aa ku samaystay waxaa soo hoosgalayo, inkastoo wax buuran aysan ahayn, account tiktok inaa samaysto. waayo account tiktok hore uma aanan lahayn, anima isticmaaleynin. 2024 febraayo ka hor ma isticmaali jirin. sababta u furtana waxay ahayd for business. mid kaloo qaas waa leeyahay laakiin wax badan uu soo dhigo, laakiin midka businesska ah xoogaa dhowr kun oo qofood, yacni 1,000 iyo jajab qofood meelahaas camal waxaa ii ah flow. waxyaabaha kale oo aan rabo in aan idinkula wadaago muuqaalka dhexdiisa waxay tahay, waxyaabihii ii hirgelay waxay tahay youtube-keyga inaan dib ugu soo noqdo. waayo youtube-keyga da'diisa marka haddii la qiyaaso waa 5 sano jir waayo. 2019 ayaa furay. maraba inaan falanqeynka galo ilaa iyo hadda asbaabihii uu hore ugu socon waayey oo maxaa la yidhahdaa meeshan hadda uu u taagan yahay waxaasoo dhan maraba inaan si dhiib looga hadlo, laakiin duruufo jiro iyo maxaa la yidhahdaa aniga xanuunsaday asbaabahaas darteeda u wadi waayey. ilaahay marka wuxuu ii qadaray alxamdulilah, oo anina aan ku dadaalay oo aa qorshaystay inaan dib ugu soo noqdo. tiina way dhacday oo dib waa ugu soo noqday, adinkaba waa arkeysiin. waxyaabihii kale oo aa qorshaystay, qorshaha hadda lee ku darsadee bishaan hadda oo ku jirno December dhexdeeda lee ku darsaday maxaa waaye inaa bilaabo Kegel exercise. Kegel exercise loo yaqaan kulli qoraalkiisa saas waa jeclaa. Kegel exercise maxaa waaye exercise ama jimicsi ay sameynayaan ragga iyo dumarka intaba. weliba dumarka wuxuu aad ugu anfacayaa maadaama ay tahay yacni hooyo haddii ay tahay tusaale ee dhasho kale, in maxaa la yidhaahdaa dhabar xanuunka iyo waxyaabaha dumarka ay ka sheeganayaan uu ka yareeyo. dadka kaadi baxsadka qabo kale, dadka la yiraahdo kaadi heystaa hore usoo sikata waxyaabahaas camal walciyaadu billaah uu u fiican yahay oo la sameeya Kegel exercise-ka. marka ani alxamdulilah xanuunadaas ma qabi, laakiin waxaa rabaa caafimaad qaba alxamdulilah, laakiin anaa rabo inaa yacni isku hagaajiyo maxaa kaloo dhihi karaa, yacni anaa jeclaysta un qof xanuunsan oo keliya ma sameynaayo, maadaama hooyo aa ahay. hooyooyinka aad ugu fiican yahay, weliba gabdhaha yacni mar dhow dhalmadooda ay cusub tahay ama xili dhow dhalay ka faa'iidaysta. haddaad taqaanid waa taqaanaa, haddaadan aqoonin hadda baro, baar googlaha geli youtube-ka geli sida loo sameeyo. waa waxaa gurigaada ku samaysan kartid, ma kaaga baahan inaad gym aadid ama banaanka aa u baxid, wax kaaga baahan ma ahan. Kegel exercise. okay, intii ugu dambeysay waxaa waaye 2024 waxaa bartay waxa la yiraahdo isdabaalis. maxaa laga wadaa tol isdabaalis? dikii maxay ka wadaa isdabaalis? waxaa ka wadaa waagii hore ama sanadadii hore meeshaan aan qarka dareemo, waagii hore ama sanadadii hore waxaa yacni sameyn jiray, tusaale ahaan waxbaa iga soo gudboonaanayo, waxaa leeyahay maanta dhan dhabankaa gacanta saarno, haw waxaan maxay u dhaceen, allah saan maxay u noqotay, saan hadday noqon lahayd, yacni anaa maxaa isku furaayo stress. laakiin hadda maxaa bartay wax markaa la kulmo oo aa dareemo waxaas inaa yacni maskaxda ku haahaayo ama aa raba inaa ka hadlo, maxaa sameeyaa maskaxda meel kale u diraa, dabaala ka dhigaa iyadana. maxaa dhahaa tusaale ahaan youtube-ka maxaa u duubtaa fiidiyoyaasha, hadda blog intay ka duubtaa, meel qurux badan intay asxaabta u duubtaa, yacni meel qurux badan oo aa aadid oo asxaabta aa u duubtid, maskaxda ka shaqaysiye fikir oo iyagana faa'iido u leh, ila meel kasta iskama aadee. maxaa la yidhahdaa maxaa sameysaa businesskaaga, maxaa ku dartaa, maxaa ka bixin, yacni maxaa oo kaa dhiman qorshooyinkii businesska aa dhigatay maxaa kuu hagaagay,
tigsiyable wixii ku hagaagay waxaan weli ku hagaagin dhibic saaro saa u toosis waxyaabahaas maskaxda ku qabtaa haddii waxyaabahaas iga babataan maxaa sameynaa ana isku mashquulo hay maxaa sameysay maxaa yidhahdaa jirkaaga nadiifsuu kaaga baahan yahay weekly timahaaga nadiifisay kaaga baahan yihiin ma sameysa waxaasoo dhan haa yacni waa sameeyaa anoo sameeyo oo waa ogahay haddana maxaa waaye inaan ku mashquuliyo oo aarawo maskaxda inaan kaga nadiifiyo waxaan kale oo aa dareemayo muuqaalka meeshaas rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaa commentiga igula wadaagtaa haddii ay jirto ani iyo adiga qorshe aa iska leenahay ama ha kuu hirgalo ama yuusan kuu hirgelin midda kale 2025 waxyaabaha yacni hadda way ii qorshaysan yihiin wuu ii qoran yahay meel uu ii yaalaa balaanka ama qorshaha meel uu ii yaalaa markii saanoo kale haddii ilaahay naf iyo caafimaad nagu gaarsiiyo saanoo kale wixii ii samaysmay tigtigaa saara muuqaal saa camal aa idinkaga soo sameynaa insha allah muuqaalo kalena waa idiin soo wadaa oo vlog cunto karis dhiirigelin intaba isugu jiro soo adinka soo wada baxaa anigaa soo wada baxaya idinka soo wada baxaa aada idin salaamaa muuqaalka xigintaan ku kulmi doono waa walaashiin zakiya aadam oo idin leh amaana allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh